samsam wadani oo kamid ahaan jirtay xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina hore isaga casishay muddo laga joogo 6 bilood ayaa maanta waxay shaacisay inay mar kale kamid noqon doonto xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanay tilmaantay marwa samsam oo kamid ah siyaasiyiinta da'yarta ee reer Somaliland in wada hadal loo socday xisbiga kulmiye uu gabi ahaanba ay noqdeen kuwa aanay ku qancin iyadoo sheegtay in waxyaabihii dhammaan ay tirsanaysay ay ka baxeen meesha sidoo kalena ay kamid noqon doonto mar kale xisbiga wadani samsam wadani oo arrimahaasi ka hadlaysa ayaa tiri rahmaan rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin anigoo magacaygu yahay samsam diiriyo soodi naanaysteeduna ay ahayd samsam wadani maanta waxaan u sheegayaa bulshada reer Somaliland maanta waxaan iskugu yeeray saxaafadii qaranka jamhuuriyadda Somaliland runtii waxa aan rabaa waxa isku kaaya dambeysay bahda warbaahinta maalintii aan iska casilay xisbiga wadani 10 January runtii maanta wada arkaysan taariikhdu halka ay marayso waxa aan rabaa maanta inaan cadeeyo halkii arinteedu ay maraysay wixii aan ku bedelay iyo halka aan ka bilaabi doono dowladnimada runtii waad ogeydeenoo waan duulayayo meelna wali baalasha kumaan kala bixinin laakiin maanta waad ogeydeenoo waxa jirtay baryahan dambe iska karadayda magaalada ku dhajisnaayo waxa la lahaa waxay ku biirtay xisbigii maxaafidka haya kulmiye runtii xisbiga kulmiye waanu isaragnay waan wada hadalay in badan baan hawsha ku wada jirnay waan rajaynayay inaan ku biiro iska karadayduna way soo baxeenoo waad ogeydeen laakiin waxa weeyaan anigu han siyaasadeed baan leeyahay hankaygii siyaasadeedna aniga u mahad celinaya madaxda xisbiga kulmiye golaha wasiirada dhammaan marwada madaxweynaha oo si fiican ay martigelisay runtii dhammaan aniga u mahad celinaya haddana waxaan u arkay hankaygii siyaasadeed in aanu ka dhex muuqan xisbiga maxaafidka ee kulmiye iyo xisbi kala toona runtii xisbiga wadani saadi wada ogeydeen tacab badan bay iga galay xoog badan bay iga galay xoolo badan bay iga galay waxa weeyaan nin haduu geel raaci jiray oo dabeetana geelaasu maxay hayday in badan ku maqnaan jiray oo safar badan la galay oo geelayn badan celin jiray oo 100 halaad lahaa oo 100kii halaad marka ay ku gudday ay intay si fiican u barwaaqaysteen dabeetana loo baahan yahay caanaha laga maalo hadii ninkaas uu cadan baan tagaya bariga hore cadan baa la tagi jiray waxa ka fiican asagoo horta caanihii geelisa maala oo dambarkii geelisa ku dabaasha runtii maanta waxaan idin sheegayaa geelayga aan inta badan raaci jiray ee aan la joogi jiray ee aan meel walba u xirgeeyay runtii in maanta uu dhalaayo qaarkii aan maqasho ugu xarayn lahaa sidii aan u oodi lahaa ayaan fulugeeda qabanayaa taasoo ah inaan ku noqday xisbigaygii wadani waad ogeydeenoo xisbiga wadani magac baan kula baxay wadani naanays baan kula baxay tacabkaygii baa galay waxaan arkayaa waan carooday laakiin markii runtii wixii dhacay leega raali galiyay ee dhibtii aan tirsanayayna ay dhamaatay ee cidii ay qusaysay ay dhamaystirtay ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo aan aqoon badan isku lahayn oo si fiican aan isku danayn jirnay runtii arintaa uu ku guuleystay inaan arintaa ka noqdo aniguna saasaan ku qaatay saasaan tolkay ku yeelay saasaan ergadeydii ku qaatay xisbigaygiina maanta qaarkiisii aan maqasha ku xarayn lahayn dambarkiisa ku maali lahaa saasaan maanta diyaar ugu ahay waxaana ugu baaqday taageerayaasha iyo waliba bulshada taageertay iyo sidoo kale kuwa ay wada shaqeeyaan in hadda wixii ka dambeeya ay ahaan doonaan xisbiga wadani waa maxamed cali xaashi Space Channel TV magaalada Hargeysa.